madaxweynaha anigu doorta intaan iminka xusuusanahay waxaa muran baa dalka hadheeyey iyo fagan somalilan ku dhacay gobolada badankooda markaa madaxweynaha taariikhda horta waxaa ma qariso way sheegi doontaa anugu u burin maayo kana yarayn maayo laakiinse wuxuun baan sheegayaa taariikhdu inay koob ugu ridayso wixii muddadaa uu xilka hayay uu qabtay laakiin dadku waxay ku nool yihiin waa rajada ee maaha waxa jeebka ugu jira maanta waxaad mooddaa rajagab aad u ballaaran oo baahsan inkastoo ay qanaacaddu dadka mu'miniinta aanay ku wanaagsanayn ee mar kasta dee ilaahaytiisa ay isku halleeyaan oo dhowraan yildiiladaa jari maayo dee raxmaankaabaa dusheenna jooga laakiin madaxweynaha waxaa lagu xusuusan doonaa muran isadkayn iyo anaa idhi fasaxii ugu adkaa kollayba shakhsiyan aniga ayaanu gallay golaha wakiilada haddaanu nahay haddii jeer golayaasha qaranku marka ay fasaxa galaan waxay ku noqdaan konstituensigii laga soo doortay siday xaaladda dalka iyo baahida gobollada iyo dhibaatooyinka ka jira ay u soo ogaadaan arrinka markaan laba u dhigo nin weynoo meel ka yimi war baa laga rabaa anigu saaka waxaan uga caajisay inaan konstituensigaygii ku noqdo nin weyne hadduu wuxuu ku warramo waayo xaaladda dalka haddii wax laga weydiiyo oo wuxuu ku warramo garan waayo horta waa ayandaro 7 fadhi ayaa golayaasha qaranku waxaan leeyahay axsaabta qaranku iyo madaxweyne muuse biixi cabdi ay ku kala kaceen gacan halaajiskii maalintii dhoweyto munaasabaddii freesonkana waxa weeye waxay ahayd ciyigii waa ka beriyey ninkii cunay baa ka liita isagoo wixii uu fushaday oo isku aadistay hootooyinkii iyo gaashaamadiisii markuu isku hubsaday ayuu yidhi fadhi baan idiin dhiga waxaa la yidhi inan yar baa aabbihii hooyadii u samaysay hadhime qadadan halkan aynu inagu nahno hadhimaa la odhan jiray markaasay tidhi markaasaa beriig subagle loo sameeyey oo dib markaa miyiga ku qaali ahaa inan yaroo adhigii iyo geelii la joogay oo soo harraaday oo fiidkii debna jabay ayaa u yimi markaasuu yidhi aabboy ma sheega isagoo dhabtii aabbihii ku ciyaaraya markaasuu yidhi maxaad sheegaysaa odaygii isilowsan bariiskii subaga lahaayee maanta buu yidhi wixii ku hadhayba sheeg buu yidhi intuu inankii dhirbaxa ka jaray muuse anigu wax dee dambeeyo oo aan leeyahay ummaddaa la weydiinaya ma jiro guddida isxilqaantay carabkaa laga dhowrdhowrayaayoo kulamadooda hordhaallada uu ka socdaa laakiin sanqarh ka soo baxayso oo dhegaha dadka macno weyn u samaynaysa ilaa hadda looma muuqato aanu imaaddo beesha caalamku waxay geedi ku soo tahay iyo igan toddobaadkeenugu soo food leh waxay imanayaan caasimadda magaalada hargeysa madaxweynuhu wuxuu u guranayaa wuxuu ku odhan lahaaye wuxuu isu qabaa dadka intii kale inuu ka adkaado ayuu isu qabaa waxaa la yidhi rag aamusay iyo riya aamusay labaduba reerkoodii gabe ninkii loodhan jiray maxamed siyaad barre wuxuu ugu shaki badnaa marka ay nabad sugiddu war suuqa marayaba weydo waxaynu gallay sanadka 2020 waxaanu gallay waxaa lagu xusi doonaa 2019 sanadkii la yaab dhammaystay ninka la odhan jiray lugooyo gabay buu tiriyey wuxuu yidhi qarniyada raggii jiray cidlay qarow la jiifaan buu yidhi waxay la qarwayaan laylka dhexe qaadan kari waa culimmada qubtani waana wayna gala quusteen
dhaxay abwaanadu qoreen sheeko qaaliya buuri quluntii lumaysaa nasteex ugama qaataan buuri inankan qur-aanka iyo la barin qaafka iyo wowga waa qaafil sabiya haddaan waalid qabaqaabin hadhow baan la soo qaban karayn qalad ay geystaan maxaa loo qabsanaya hadduu qariyo buur jiro waxa weeye nin odayoo qoomiyaddan ogaadeenka ka dhashay baa beri waxaa la yidhi ayaa wuxuu yidhi isaaq maalin buu qabasho lahaa waa maalintuu ninka keliya ahaa buur somalilan weligeed haddaad aragto nin wax ka adkaada waa laba midun inuu nin sidii istaaliin nin dhiig daadiyo oo wax kasto haddana dee raashiya oo ninka helay waa xigmadtaas laakiinse markaad khalli duurto waa yandaro maanta state of silence bay somaliland gasho state of silenska marka la leeyahay xaaladda aamuska ku sugani waxa weeye waa arrin aan ku wanaagsanayn mujtamaca somalilan iyo baxnaanadiisa halkii cid laga canaanaya maanta way dhaaftay waxaan la ogeynina ma jiro waxaan markaa kelmaddaadan ku soo koobayaa anigu xildhibaan ahaan maanta constituensigii baan dee fasax 2 bilood oo 8 wiiga baanu galla nin weynoo wuxuu ku warrama aan garanayn meelna kuma noqdo bal waxaynu eegaynaa toddobaadka dambe iyo waxaynu la koobsanno beesha caalamku kaalin weyn bay kaga jirtay somaliland oo horumarin iyo geedfaadka dimuqraadiyadda labadaba leh waanu ka wada maarannay arrin suuragala maaha u malayn maayo ilaahay nasri ha u soo roga madaxweynaha arrin somaliland ku wanaagsan inay tahay lacag baanu haysanaana macnaheedu waxay ahayd oo uma baahnin siduu yidhi dalalka jaarkay dee caawiyaana annaga waxba nooma taraan waa abaalgad waa libgad ministerial lineska maanta aynu lacagteena horumarinta ku qaadannaa waa lacag aad u fara badan barnaamijka TPLG-gu weliba dheerayay haddaad aragto dal curdina oo doonaya aqoonsi oo yidhi beesha caalamka uma baahnin caqli ku dambeeya anugu garan maayo marka madaxweynaha awliya aynaan arkayn baa la talisee halka ay ku dambayso dee waynu wada dhowrina